weli waxaan ku jirnaa ka hadalka food systemska oo Soomaaliya. Waxaan hore uga hadalnay waxa lala jeedo food systemska. Waxaan kala ka hadalnay caqabadaha ka jiro food systemska. Marka fursadaha ka jira food systemska waa maxay? Waxaan ognahay value chain-ka oo food systemska hadda aan ka hadalnay laga bilaabo qofka wax soo saaraya ilaa iyo qofka consumerska fursado badan ayaa ka jiro oo macnaha aad u qiimo weyn oo marwaxadda dhaqaalaha oo Soomaaliya dhan wax ka bedeli kara. Macnaha waxa waaye beero badan oo dhul fiican oo nafaqo leh ayaan leenahay. Laba sibo loogu faa'iideysan karaa in la badiyo dhulka hadda la beerto, dhulka badan in la beerto, ama in xoogga la saaro in unitkii oo beer la beeranayay in wax soo saarkiisa la badiyo. Waxaa kala jiro qaybtan input supply-ga, macnaha dhinacaan fertilizerska iyo mataqaanaa abuurada iyo meeshaas oo dhanna fursado ayaa ka jiro oo loo baahan yahay in laga faa'iideysto oo iyadana kor loo qaado. Waxa ugu muhiimsan intaasoo dhan oo soo raacayo waxa waaye qaybtan oo processing-ka la yiraahdo. Ilaa maanta Soomaaliya waxaan ognahay wax alla wixii oo la soo gooyo wixii horta wax badan hal mar ay wada soo wada go'aan. Marka wixii markay soo go'aan suuqay wada imaadaan, qiimihiina hoos u dhacaya. Laakiin hadduu jiro يعني food processing wadadka ka howlgala inay mataqaanaa value addition ku sameeyaan ay wax ku daraan ama packaging ha ahaado ama gasaceen ha ahaado ama ha ahaado hab kale oo mataqaanaa oo loo suuqeeyo productiga markaas u soo baxay. Marka taas laftirkeedu waxa waaye fursado aad u badan ayaa ka jiro. Export market ayaa jiro oo fursado ah. Local market oo macnaha iyada laftirkeedu quality control fiican haddii la sameeyo fursado badan ayaa ka soo bixi kara. Marka fursadaha aad bay u badan yihiin in the food system. Waxaanoo dhanna waxaa xakameynayo in nabad fiican la helo, policy fiican la helo, financial institutions fiican la helo oo waxaan tashiilaadkan u sameynaya dadka u sameynaya inay mataqaanaa wixii ay soo kordhiyaan. Marka impactiga ama saameynta ay ku yeelan doonto Soomaaliya waa wax aad u weyn. Number 1 waxay keeni kartaa impactiga waxaa ka mid noqon kara in laga maarmo wixii oo raashin oo dibadda laga keenayo iyo in laga maarmo xataa yani wixii food aid ama kaalmooyinka oo bannaanka laga keeno. Marka intaas haddii oo ay la joojiyo oo mataqaanaa wax soo saarka gudaha la kordhiyo saameyn oo at least productionkii wax ku filan waddankii in la keeno. Taasna waxay ku imaanaysaa oo in shaqaale badan in la helo, employment badan in la helo. Macnaa dadkii dhallinyaradan oo hadda mashaakilaadka badan ka jiro inay howlgalaan oo mataqaanaa oo loo soo jeesto tacabka iyo wax soo saarka. Impactiga iyo saameynta kale ay ku yeelanayso waxaa ka mid ah haddii dhallinyaradii iyo mataqaanaa dadkii oo mataqaanaa waddanka u dhashay ay howlgalaan ay shaqeeyaan waxa yaraanayo violence-gii ayaa yaraanaya. Sababta waxa waaye waxaan ka hadlaynaa waddan oo civil unrest ku jiray, dhallinyaro oo ku dhow 60-70 ku dhow oo Soomaaliya population ah oo shaqo la'aan ah. Haddii maanta mataqaanaa wax soo saarka la kordhiyo oo value chain-ka oo dhan laga howlgalo oo laga shaqeeyo saan hore u sheegnay from production all the way mataqaanaa to consumers waxa u dhaxeeyo oo dhan haddii marwaxadaas la dhaqaajiyo marka waxaa soo baxaya in shaqaale badan oo ay ka mid noqdaan workforce-ga inay soo baxdo. Waxaa kala impact ay ku yeelanaysaa hadda Soomaaliya waxaan ognahay in waxaa lagu tilmaamaa 10% ilaa 15 inay IDP yihiin. IDP-dana maxaa keentay abaare iyo nabad darri oo meelaha ka dhacay ayaa waxaa keeneen. Marka IDP-ska oo magaalooyinka waaweyn oo wax ku leh waxay fursad siinaysaa inay ku noqdaan beerahoodii ama meelihii ay ka imaadeen xoolahoodii inay ku noqdaan ay wax soo saarkii ay ka mid noqdaan. Waxay helayaan oo kale in caruurtoodii inay wax baraan, inay caafimaad fiican ay u helaan. Taasoo dhanna waxa waaye food system-ka
ayay wax impact ku yeelanaysaa. Sababta waxa waaye bulsho caafimaad qabta, bulsho wax soo baratay ayaa wax bedeli kara. Fursadda kale oo meesha soo baxayso waxaa ka mid ah waxaan ognahay in boqolkiiba 50 in ka badan oo Soomaaliya inay dumar yihiin. Marka dumarkana qaybo badan ayay ka qaataan wax soo saarka, weliba gaar ahaan beeraha. Markaan eegno waxa beeraha qodo oo ka shaqeeya dhinaca abuuritaanka ha ahaado, ama cawska markii beerta laga ilaalinayo ha ahaato, ama goosmada ha ahaato, iyo dhinaca mataqaana xoolaha markaan ka fiirino caanaha oo dhan waxaad moodaa boqolkiiba 90 in ka badan inay dumar ay ka shaqeeyaan. Suuqyada boqolkiiba 90 waxaa fadhiya dumarka ayaa fadhiyo oo marketingka u sameeya ama suuqgeynta ka shaqeeya. Sidoo kale kalluumaysiga waxaa arkaysaa dumarka in qayb weyn ay ka leeyihiin markii la nadiifinayo kalluunka. Marka dumarka ay laftirkooda waxaa meesha ugu soo baxayo fursado aad u waaweyn inay ka mid noqdaan bulshada wax soo saarka. Waxa ugu dambeyn oo macnaha meesha isugu biishanayo in la helo meel nabad ah lagu noolaado oo dhaqaalihiis fiican yahay, aqoontiisa iyo waxbarashadii inay fiicnaato, quality oo mataqaana oo fiican in la helo oo dhinac walba ah oo saameyn ku leh inay soo baxdo. Taas ayaa ugu dambeyntii impactiga saas ay noqonaysaa.